Nabadoon Cabdulqaadir Axmed Xarago oo ka mid ah ismada dhaqanka gobolka Bari ee maamulka Puntland ayaa baaq u diray ciidamada ku dagaalamaya gudaha magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari isagoona sheegay mas'uuliyadda inay qaadayso cid kastoo gacan ku leh isla markaana ku lug leh dagaalka ka socda magaalada Boosaaso. Waxaana madaxweynaha Puntland si gaar ah ugu diray baaq isagoona sheegay inuu joojiyo dagaalkaasi sidoo kalena saraakiisha iyo ciidamada ayuu baaq u diray. Wuxuuna sidoo kale baaq u diray dadka shacabka ee ku dhaqan gobolka Bari oo sheegay inay ka tashadaan aayahooda ay ku dhinteen dad badan ay ku barakaceen dhibaato badan ay runtii ay weli ka taagan tahay. Waxaan baaq u dirayaa maamulka dawladda Puntland ugu horeeyo madaxweynaha Puntland. Waxaan baaq u dirayaa ciidamada BSF ee gobolka Bari khaasatan taliyaha guud ama General Asad. Waxaan rabaa inaan baaqaygaas ku aadiyo inay muhiim tahay xilligan in la joojiyo xabadda. xabaddu xal maaha, xabaddu wax lagu fekero maaha. mujtamaca gobolka Bari khaasatan degmada Boosaaso waxaan si gaar ah ugu dirayaa iyaguna waxgaradka iyo guud ahaan bulshadaba inay xakamayaan arrimaha meesha ka jirana xalkooda iyo wanaagooda ay ka shaqeeyaan. 46 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta duhurnimadii u gudbiyay maxkamadda sare ee dastuuriga ee Somaliland xeerka furista ururada iyo asxaabta Somaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaa khilaaf xoog leh iyadoona golaha wakiilada Somaliland ay arrintaasi ku kala qaybsadeen isla markaana isbuucyadii soo dhaafnay arrintaasi ka dhalatay gacan ka hadal iyo waliba foodo ka dhacday golaha wakiilada xarunta golaha wakiilada Somaliland iyadoona 46 xildhibaan ee ka tirsan golaha wakiilada Somaliland oo iskugu jira mucaarad iyo muxaafid una badan xisbiga talada haya kulmiya iyo sidoo kale waliba labada xisbiya kale tiro qaybo kamid ay kaga jiraan xildhibaanada ayaa tirada xildhibaanada ah ee taageersan furista ururada inuu dhaqangal yahay xeerka furista ururada Somaliland kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhashay khilaaf iyo kala qaybsanaan ka dhaxdhalatay golaha wakiilada Somaliland isla markaana isbuucyadii soo dhaafnay sababay in goluhu xurmo isla markaana gacan ka hadal ay halkaasi ka dhacdo. Gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif oo dhawaan guddi u saaray inay ka soo tala bixiyaan isla markaana ay xildhibaanada golaha wakiilada heshiisiyaan kana saaraan meesha kala qaybsanaanta iyo kala argagaxanaanta ayaa xalay sheegay inay ku fashilmeen isla markaana ay arrintaasi xalin kari waayeen ayna ku guuldareysteen arrinta xal u raadinteeda iyagoona shacabka hogeysiiyay inay arrintaasi caqabado ay kala kulmeen. Arrintan ayaa muddadii ugu dambeysay waxay ahayd xiisad ka taagan Somaliland iyadoo aan loogayn natiijada ka dhalan doonta hase aqlabiyadii xildhibaanada ugu badnaa ee isugu jira mucaarad iyo muxaafid ayaa xilligan u gudbiyay maxkamadda sare warqad ay ku saxan yihiin xeerka furista ururadu inuu yahay mid dhaqangal ah halka 36 xildhibaan ay ka soo horjeedaan oo ay diidan yihiin. hase xildhibaanadan ayaa wata aqlabiyadda xildhibaanada golaha wakiilada lamana oga meel ay arrintan saldhigan doonto. duqa degmada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa ku eedeeyay dagaalka ka socda magaalada Boosaaso ee maanta halkaasi ka bilowday kooxo uu sheegay inay yihiin kooxo wada qalqal iyo foodo isla markaana ah kooxo rabshadlayaal ah oo abuuraya rabshado. ciidamada BSF ee Puntland ka amar qaata taliyihii xilka laga qaaday ee Maxamuud Cismaan Diyaana ayuu ku eedeeyay inay ka dameeyaan dagaalka iyo rabshada ka jirta magaalada Boosaaso. waxaana sheegay in kooxaha rabshadleyda ay yihiin kooxo yar oo hal guri kaga kooban magaalada Boosaaso isla markaana waxyeeleeyay dad shacab ku riday xabado iyo hoobiyaal iyo waliba xaafadaha magaalada qayb kamid ah. waxaana sheegay in kooxdan la soo afjarayo dhanka kalena wuxuu sheegay ciidamada gorgor inay halkaasi ku sugan yihiin. hadalka duqa degmada Boosaaso ayaan loogayn waxa uu la jeedo ciidamada gorgor maadaama ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya guutada gorgor loo yaqaano inta badan ay wax saameyna howlgala iyo sidoo kale waliba joogitaana aysan ku lahayn gudaha magaalada Boosaaso iyo sidoo kale deegaanada Puntland.
waxa uu sheegay kooxahaasi inay yihiin kooxo gacmo shisheeye ay ku jiraan dhamana oga kooxahaasi gacmaha shisheeye uu ku eedeeyay inay sidoo ciidamada BSF ay la jiraan hase haatee dowladda federaalka ayaa dad badan u fahmeen inuu la jeedo maadaama uu soo hadal qaaday Gorgor iyo ciidamada dowladda qaybo ka mid ah sheegay inay ka dagaalamayaan Boosaaso.